أول إله بما أسكت تبارك وتعالى وإذن بهالعلم يا بهذا صحافة وحروا بإذن الله تعالى ما أنت إن الشعب الصومالي دي باش عالم كيتبع لو ذاقو كرير أو قربان أو قصاب سنددي دارد أو شنطة بلاد هاد وأفضل كل إيهستي حقيقيا حاربة أولا نرت إلى أمهد عليو لما شعب الصومالي المسؤولين صوماليين وكحماتي وحالي اللي ورد رقمي سيدي اللي وصلي بيش سيدي دا سودني كود سنة كهرباء الماضي أنا بسفرة ومقالة مقدشو قرنك آذن عدة سفر ترانسيت كوحة قواشد اللي قبتي دولة الفدرال كأه شعورتي كموجية شعب الصوماليات كارهان لجبلان دل يدود iyo مسؤولين بدن الصوماليات ولو ربنا سيجارة وهم هذا عليو مدحونها دولة بطلان ورالك سعيد عبد الله الدني يحلبان فقي ورنت قديد السيجارة وجه الله أديت وهم هذا عليو يعني أمان مسؤولين الشعب انتبه ذاتك الصوماليات نفتي وحلي ورا رقمي أنت سكدب أنواع عفمة قبا الحمد لله وأديت بعض عفمة قبا وحلبات أما قبا وحن كسونا هاي مجرد بلد حاوي قبل كجدو وحنرها إمت وأن جوجا مدة صدح مالنا وحنجعلها إن شاء الرحمن قبير وكوبان وحاليه يسلي وحول عين والسيرة أرودر أما حقيقيا سيقة أفرا بدن مدة شنطة بالوضع هيد وحي عن صومري أما شخصيا وحي لا يقول رقمي انتبه وبرامج أباهن وقت دير يفرصدو فرا بدن لنا وذاك دون إن شاء الله تعالى شعب الصومالي مسؤولين تبع يبش عالمك فرال أب فرحون حقيقيا أنا أكون أكثر دول النماذج الصومالي النماذج انتبع ولا يقول رقمي وحندري مي أما أن لعضي قوى شديدي البركة مقالة مقدشة اللي قبتي إن سيكر دون الله حظي لقينا لقي قف دنبيلة ودنبي الله يستود الشعب اللي هبلو كان وحير نوع سكلته وحرب أنا حسوسي شعب الصومالي قف كستوعد كي مغلها ينتبع شخصيا عبد الرشيد هان وحا مقدشة تجي قوشيدي دي كهر بشي الحال واتني تدمني دي أنا كنت تجي مقالة كسماء عاصمة ملقاك جبلان وحا قرون كل سلوي حلبانو يوزيرو دولة فدرال الصومالي كمداه waxaan degay xarunta nabadsuuda qaranka Soomaaliya waxaan joogay ilaa bishii 7 waxaan la kulmay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Abdullaahi Farmaajo muddo laba jeer ah oo loo mid waqti kamid ah jaanis aad u dheer aan isku helnay madaxweynaha oo aan ka wada hadlaynay qadiyad ku salaysneed inta badan doorasho la rabay inay ka qabsanto Jubbaland iyo aragtiyo kala duwan oo dawladda dhexe iyo Jubbaland u dhaxeeyay waxaan dhex deganaa taliska isaa hore u sheegay nabadsuuda qaranka oo saraakiishiisu ama hay'adda saraakiisha u sameysay aan kuranay muddo ayada nafteeda ilaa dhowr jeer ah oo aan isla deganeen oo aan deganeen hotel oo aan deganaa guriga ku dhex yaalay xarunta hay'adda nabadsuuda waxaan ka soo tagay bishii 7 sidaan horeyba u yeelay 8 waxaa dib leegu qabtay aniga oo safar ah xamar ama muqdisho garoonka aadan cadde bishii 8 Sudan iyo bishii 7 marka haaf kamid ah waxa isoo disle bishii 7 haaf kamid ah iyo bishii 8 oo Sudan iyo ay ku ekeed mareysay oo la qabtay miyaan dambiilo ku noqday mana ahayn markii hore dambiile madaxda qaranka la kulmay xarunta dawladda deganaa taas marka shacabka Soomaaliyeed ay fahmi karaan iyo qof kasto oo xaqiiqiyan arrimaha Soomaaliya ee ka warqabo wixii aan ku xirnaa dambi ummadda shacabka Soomaaliyeed iyo dalka iyo dadka midna aan ka galay inaysan ahayn inay ahayd barnaamij siyaasadeed qadiyad siyaasadeed oo dabcan ku kala aragti duwanay sidii wax u rabtay dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidii shacabka reer Jubbaland dantooda iyo maslaxadooda ahaado ay wax u rabeen aragti kala duwan ay noqotay oo dhacday doorashadii dhacday 22 bishii 8 oo Sudan iyo la qabtay waxaa marka qof kasto bil aadan u fahmi karaa ama Soomaaliyeed ama rabaa inaan u xaqiijiyo shakhsiyan in dambiile ah ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dambi ka galay ma ahayn maxaa sida waxa barnaamijka Kismaayo ka dhacay
sida u dhacay kuma aan qanacsanayn buu ahaa wixii muddada 5 bilood ah lagu hayay hal ay hayo dhima lahaan siyaasad ragoo lagu qabtaa way dhacdaa dad kale aragti duwan in ay ku timaado barnaamijyadan oo kale wax iska iman karo laakiin waxa haddana nasiib darro ahayd muddada 5 bilood ah inaan xarun dawladeed arag laguna xirin waxaa maqli jiray markii burburka dhacay inta badan dadka shacabka Soomaaliyeed gobolada magaalada Muqdisho ku xirnaayeen oo ganacsigooda ay ku xirnaayeen waxaa maqli jiray ninkii hebel ahaa oo ganacsadaha ahaa bakaara dad Soomaaliyeed hantidooda oo ku dhintay oo afduuba guryo loogu haystaa dad shacab ay leeyihiin baa maqli jiray xilligii baa dhici jirtay taasaa dhici jirtay qaybo ka mid ah waxaa markii soo baxday in aanay markii la qabtay aan igeynin wax xarun dawladeed ah hal maalin guryo madaxda dawladda ay sitigi karin xaqiiqiyan riski ah dad shacab oo Soomaaliyeed ay dhisteen xaafado duur oo ku yaalo dawladdu aysan kontroolin baa usbuuciyaba guri la igeynayo la igu hayay ma garan karo waxa la igu wareejinayay dabcan guryo xaafada xamar ku yaalo oo inta badan waliba kamid ahaa guri lagu hayo inta badan xaafada Hurwaaba ahayd kolba maalba guri in la igeeyo waxa maxkamadda igeeyay si shacabka Soomaaliyeed loogu qanciyay inaan dambi leeyahay bish sagaalaad 6deedii markaan 36 casho xirnaa kadib bish 16deedii 36 casho markaan xirnaa kadib waxa la igeeyay guri waxa la igeeyay maxkamad gobolka Banaadir waxa cajiib ahayd eedo waxaa jirtay 2015 barnaamijka sidaad ku salaysnaa inta badan oo la ii soo jeediyay eedeyntaas horey la igu soo jeediyay waxay maxkamadda gobolka Banaadir iyo xeer ilaalinta qaranka way xireen bishii afraad 30keedii sida inta badan ummadda Soomaaliyeed ay arkeen oo fayl dacwadeedkaas ay xireen ay xirtay maxkamadda gobolka Banaadir iyo xeer ilaalinta intaba waxa cajiib ahayd in isla gudoomiyihii gobolka maxkamadda gobolka Banaadir oo bishii afraad warqadda qoray isla asagii anigoo la igu eedeynay isla barnaamijka asaga ah la igeeyo oo gudoomiyihii naftiisa u yaabo cid ay ka timid in warqadaas la qoro barnaamijkaas barnaamij siyaasadeed ahaan uu ahaa madaxda dalka u sareyso oo xeer ilaalinta iyo maxkamadda intaba kala hadashay in wixii eedeyntaas la iga qoray shalay ay gardarre ahayd barnaamij siyaasadeed uu ahaa dulmi uu ahaa maxkamadduna ay xirtaan gaal dacwadeedkaas wixii ka dambeeyay xilligaas markuu arrintaas dhacday kadib waxaan dalbaday in aan helo lawyer waxaan si darro ahayd in la diiday lawyerkii aan lahaa in uu wax kulan ah ila yeesho ilaa markii dambe si cad loo yiri ninkan kiiskiisa barnaamij aad xalin aad ka noqon kartid qareen ma ahan iskaga tag oo ku qanciyo ummadii qabatay aniga inta badan xiriir waa la diiday oo ehelada ila ahayd dib ugu soo noqdo lawyerkii oo uu yiraahdo barnaamijkan kiis siyaasadeed waayo ma ahan kiis maxkamad lagu xalin karo siyaasad baa lagu xalin karaa waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego sida horeyba ninkii taliyaha ninkii sargaalka sare ahayo journalka ahayo ka tirsanaa asluubta Soomaaliyeed ilaa aniga bilkulliyanba hal maalin xabsi dawlad ay leedahay station dawladeed xabsi ku yaalo ama xabsi dhaxo dawlad ay leedahay iyo xarun dawladeed midna inaan arag waxaan kaloo rabaa inaan xaqiijiyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan rabaa ummadda inaan u xaqiijiyo meel aan ku xiranahay kuma soo wareeg wasiirka amniga oo isku bahda ahayn ma uusan ogeyn meel aan ku xiranahay shakhsiyaad yar oo kooban oo taliyaha nabadgelyada qaranka Fahad Yaasiin kullane oo baawar aad u fara badan dabcan shaati qabiil baa lagu siiyay aan dhihi karo oo ama ku xirtay ama wixii dawladda iyadina sabadan ay ku burburtay in baaqaad badan oo kamid ah ayo ku shaqeynayo aragtida ay muuqanayso in qofka saddexaad oo barnaamijkaas ka warqay wuxuu ahaa Saadiq Joon oo ah General Saadiq Joon oo ah taliyihii qaybta gobolka Banaadir saddexdaas nin dabcan waxaan u wareeyay wasaaraha dalka Soomaaliya lugna inuu soo kulahayn ummadda Soomaaliyeed rabaa inuu xaqiijiyo inuu soo lugna kulahayn
dhibaatayntii shantaas bilood la imariyey meel aan ku xiranahay iyo wax la haysta midna uusan ka warqabin ra-iisul wasaaraha dalka taasna xaqiiqiyan wax dhab ah oo jirtay ahayd falilahi alxamdu walmanna barnaamijka isaga ahaa waan ka soo gudbay waxaana ii suurta gashay waddo kastoo isticmaalayba inaan maanta xorriyad ahay joogo deegaanada Jubbaland degmo ka mid ah ku suganahay Buulaxaawo dhex jooga ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo arkahayay waxaan kaloo dareemayay tariikhayka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Sakiya hawareertay way aniga gabar hawareertay waayo marba inaan ku fogaado laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo labada jeer idaacadda ay ka hadashayba marna axwaashiida kama soo warqabin markasto waxaan rabaa in aan telefoon loo soo diray ama loo yeero u tagto dadka systemkaas gacanta ku hayay loo diray in idaacadda ka hadasho laakiin aysan ka warqabin system aan ku xiranahay iyo meel aan ku xiranahay iyo wax lagu haysto midna hawareertay markuu cudur daaraya dhimale biidhnillaahi tacaala mar raba inaan ku fogaado dabcan intaas markaan kasoo gudbo waxaan aad uga xumahay waxa maanta ka jira gobolka Gada qayb ka mid ah gaar ahaan degmooyinka Buulaxaawo Doolow iyo Buulaxaawo iyo Luuq markii koonfurta Soomaaliya oo dhan ay argagixisadu qabsatay 2008 waxaan maleynayaa Doolow ay ahayd degmada keliya ah koonfurta Soomaaliya ku taalo oo shabaab ka badbaaday waxaan dib ugu abaabulnay ciidamo Soomaaliyeed oo dowladda TFG ama dowladda kumeelgaarka Soomaaliyeed ka mid ah hoos yimaado ciidamo qaran ah ciidamo dowladeed ah waxay ciidamadaas xoreeyeen Buulaxaawo bishii 3 shanteedii aan Buulaxaawo qabanay bacda shida oo tacab dagaal aad u fara badan iyo caqabado fara badan oo soo maray kadib magaalada dib waxa loo qabtay shantii bishii 3 2011 luuqna waxaan qabanay 7 bisha kadib Garbaharey ayay ciidamadaas qabteen oo caasimadii gobolka ah ama xaruntii gobolka ah waxay ku sugnaayeen muddo badan weeraro badan iyo dagaalo badan oo hujuum ah cadawgu ku sameeyeen oo isku difaaceen waxa koonfurta Soomaaliya ognahay 3 magaalo isku furan oo shacab iyo mas'uulba si nabad loo mari karo waxa ka jiro Buulaxaawo Doolow iyo Luuq oo gaadiid intii loo kala raaco cabsi la'aan lagu maraayo jidkeeda intii ayadoo nabad ahayd maanta inay dawladdu nabadda ka qaado oo mas'uuliyiinta dawladdu u sareeyay ay ku fikiraan in shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha samafalka ka dhex shaqeynayay oo ummadda Soomaaliyeed bulshada oo dawladda looga baahnaa qayb badan oo kamid ah u hayay shacabka Soomaaliyeed in khalkhal la geliyo oo shacabka la dhibaateeyo oo hadda dhimasho jirto oo dhac uu jiro oo shacabka khalkhal la geliyo intaasna xaqiiqiyan waa arrin aad uga xumahay waxaana dabcan mas'uuliyadeeda qaadan doono madaxda Soomaaliyeed oo go'aansatay in dal nabad ah ciidamo Soomaaliyeed ay joogaan oo daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland ay leedahay khalkhal intaan la eglageliyo oo dhibaato intaan la eglagu sameeyo iyadoo waxa la dirahay tahay hebel baa nacbahay waxa guul darro ah hebel baa nacbahay ama hebel baa nacbahay in shacab Soomaaliyeed noocan loogu galo arrin xaqiiqiyan aad guul darro ah waxaan shacabka Soomaaliyeed loo wadaagi doonaa muddadii aan joogay Muqdisho oo koobneyd oo aan horey uga hadlay oo madaxweynaha dalka dowladda federaalka Soomaaliya aan kulanay muddada 2 jeer ah muddada dheerna aan kulanay waxaan rabaa inaan xasuusiyo shacabka Soomaaliyeed muddada yarkeed hadda usbuuca ka yar oo ciidamadan la keenay degmooyinkii amniga ahaa oo nabadda ahaa oo 2011 la xoreeyay oo cadawga laga fogeeyay oo nabadda haysatay waxaa hadda dhacday in magaalada degmada Luuq oo kale akaaro oo xarada ciidanka ay ka shayso oo magaalada gudaheedii ah istaalkeedii in shabaab daawo ka rartaan sababtuna ay tahay rag ilaalinayay oo yaqaanay oo cadawga meesha uu soo marahayay yaqaanay iyo systemkay wax ku ilaalinayeen oo dhan baa meesha laga saaray Doolow oo amniga ugu badan uu ka jiray gobolkana dhimasho iyo dhaawac waa ka dhacay waxaa dhacday Buulaxaawo in shacabka Soomaaliyeed caruurtooda cashooyinka u karsanayeen digsiyadii in dabka lagala daway askaro cunto waxay ku noolaayeenna ama Buulaxaawo amniga ay haysteen iyo Luuq iyo Doolowna oo dambeyn sanadii hadda ugu dambeeyay waxaan filayaa mid ay marqaati ka tahay beesha caalamka gaar ahaan hay'adaha samafalka ka shaqeeya iyo bulshada Soomaaliyeed ku nool intaba
waxay ahayd mid marqaati madoonta ah oo qof kasta Soomaaliyeed uu og yahay amniga ka jira degmooyinkaas waxaan rabnaa shacabka iyaga tiro badan iyo dhib badan baan soo marnay waxaa joogay ciidan akhlaaqiyan aad u wanaagsan ciidan Soomaaliyeed ah waxyaalaha xataa muqaadaraadka ah oo inta badan askarta Soomaaliyeed isticmaasho aysan dhici karin askari barnaamijka isticmaalayo inuu ku dhex noolaado ciidamadaas waxaa dhacdo waxyaalaha hadda shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan degmooyinkan ka dhex dhacay ka mid ah maqaayadda cuntada lagu karinayo intii la soo galin la yiraahdo xashish iiba ma haysa khamri iiba ma haysa ayadoo biyo lagu dari jiray arki jiray ayadoo saaka aan maanta haysanaa la isku bishaareeyo oo qoryo askari qori jiidahay oo magaalo dhex marahay oo qoriga intuu gafuur ka qabtay dhulka ku jiiday wallahi waa wax nasiib darro oo aad looga xumaado waxaana barnaamijkaas ayada mas'uuliyadda qaadi doono madaxda dawladda federaalka Soomaaliyeed oo ku fikirtay arrintaas ayada ah waxaana rabnaa in aan xaqiijiyo in aan shacabka iyaga ku fiirsanin dhibaato wadaxaawo لو تكون كويت وانت مكان قبلين waxay magaalo ay go'aansadeen shabaabku inay difaacdaan madaxda shabaabku dhan isku timid waxaan qaadanay waxa aan ku noolno shacabkii uu ku nool yahay inaan u adkeysan karin markaan xoreyntaas gobolka sameeynay waxaan rabaa inaan xaqiijiyo inaan marna u dul qaadanaynin waxa ka dhacay systemkan waxa in odaya laga sheegay sarhayo nin dilayo muxib hadii shalay shabaab cadow ahaayeen oo shacabka Soomaaliyeed inaan kala tacaalno aan go'aan saarnay hadii cadow ka duwan oo la mid ah shacabka Soomaaliyeed lagu sii daayo oo dhibaateynayo oo mas'uuliyiintu ahayn marna ma aqbaleen in jiritaanka anaga iyo dawladnimadanada iyo waxaan ku saleysanahay in lagu ciyaaro midnimo una xaqiijin rabaa in aad baan waxaan uga xumahay in dhalinyarada Soomaaliyeed oo cadowgoodu uu banaanka taagan yahay oo dalkii uu amni darro ka jirto oo cadow shabaab leeyahay uu haysto in maanta ayk dib la iskugu laayo aad iyo aad arnaan oo xumahay waxa kale oo nasiib darro ah magaalada Muqdisho aan ku xirnaa 5 bilood oo aan afduubka lagu haystay maalin aysan dhibaato ka dhicin oo aan qof lagu dilin ama bisoolada lagu dilo ama bomba meelaha lagu tuuro ama qaraxa ka dhaco oo sidii kii hadda ex control ka dhaco kala shacab Soomaaliyeed oo fara badan iyo dad ummadda Soomaaliyeed dawladda kale oo nakalkaalay inta wax lagu laayay waxa xaqiiqo ah in amniga magaalada Muqdisho wasiir ah ummadda Soomaaliyeedna ay wada fahmayso og tahay oo Muqdisho iyo afgooyo 30 kiiloomitir dawladda ay control laad 30 kiiloomitir afgooyo iska daa Muqdisho gudaheeda dawladda ay control laad hal jid oo kala xiran oo qof mas'uul ah qof aan ahayn uu soo mari karin 24 saac ay dhibaato ka dhacdo gobollo iyo degmooyin nabad ahna amniga laga qaado barnaamijkan la sameeyay taasna waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed ee beesha caalamka intaba waxyaalaha dhacahayo oo mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliyeed oo hadda dalka madaxda ka ah ay ku fikirayaan waxaan rabnaa 2020 inaan gaarno qof naga aragti duwan oo aan jirin baan rabnaa taasina dal lagu dhisay dawladna lagu ahaanin aad iyo aad baa maasantiin waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u xaqiijiyo inaan la wadaagi doono min bidaaya ilaa nihaaya ama dhamaad ilaa bilow 5 bilood wixii la ugu dhaqmay aad iyo aad baa maasantiin iyo qadiyada aan ku xirnaa inta